mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada Machadka Darwiish Academy. weli waxaan ku dhex jirnaa qulqulkii taxanaha ahaa ee Trainlineska aan kaga hadlaynay. waxaan ka soo hadalnay qeexidda Trainline. qaybtana waxaan kaga hadlaynaa qaacidooyinka Trainlineka ama mar walba oo aad Trainline sawiranaysid maxaad ka fiirinaysaa, maxaase lagaa doonayaa, anoo si hufan kugu sharixi doona. qaacidooyinka Trainlineka oo aad baratid waxaad fahantay inaadan ku khaldamin lacag aad falanqaysay. sababtoo markaa fahansan tahay qaacidooyinka Trainlineka waxaad kuu fududaanaya in aad falanqayntaada saxatid. waxaan ka hadlaynaa marka 5 qodob oo aan ku soo koobayno qaacidooyinka Trainlineka. okay, ka bilow falanqayntaada Trainlineka time frame fog sida 1 month, hal bil, 1 week, hal toddobaad asbuuc ama hal maalin ilaa aad ka imaanaysid kuwa yaryar time frame-yada yaryar 4 saac, 1 saac, 15 daqiiqo. waa muhiim marka mar walba oo aad falanqayntaada Trainlineka aad wax ku falanqaynaysid isku day inaad ka bilowdid hal bil oo u soo gaabiyay 1 month, inta waxa u soo gaabiyay hal bil, hal toddobaad oo u soo gaabiyay 1 week iyo hal maalin oo u soo gaabiyay 1 day. marka ay ugu yar tahay oo aadan kuwa kan aadan ka bilaabin waa inaa halka ka bilowdaa. haddaa rabin 1 day waa inaa ka bilowdaa. marka ilaa aad ka imaanaysid 4 saac, 1 saac, 15 daqiiqo. waa muhiim mar walba oo aad Trainline sawiranaysid inaad meel fog, marka aad meel fog ka soo aragtid tusaale oo kale maxaad uga bilaabaysaa meel fog Trainlinekaaga. maanta anigu haddaan rabo magaalada aan deegaanka ku ahay, aan deganahay ama ku nool inaan sawir iyada dhan ka qaado, ama xaafadda aad deganahay area aan deganahay, daaqadayda intaan camera kala baxo ama taleefanka kama qaadi karo, ama waa inaan guriga dhakadiisa fuulaa ama meel sare oo dabaqa waa inaan fuulaa soma si aan si fiican magaalada ugu wada arko. si aad marka Trainlineka aad suuqii oo dhan si guud u aragtid waa inaad time frame fog ka soo bilowdaa falanqayntaada. sababta kale oo aad uga bilaabaysid time frame fog waa maxay? sababta kale uga bilaabaysid waxa suuqii waxa ka maqnayd dhowr beri, suuqa waxa ka maqnayd dhowr saacadood, suuqa waxa ka maqnayd mal waa inaad marka meel fog tagtaa ama hal bil, hal toddobaad iyo hal maalin si aad u heshid sida saxda ah suuqa inta aad ka maqnayd wixii ka dhacay oo dhan. waa muhiim marka time frame-ka fog inaad suuqa ka bilowdo, sababtoo waxaad helaysaa sirtii saxda ahayd iyo goobtii saxda ahayd aad suuqa ka bilaabi lahayd. waa muhiim marka inaad meel fog ka bilowdid. waa qaacidada ugu muhiimsan aysan dad badan fahansanayn. 1 hour buu qofka wax ku falanqaynaya ama 4 hour kadib uu suuqi gelaya. taasna waa dhib haysta dadka suuqan ka shaqaysta. waa muhiim marka time frame fog inaad ka soo bilowdid falanqayntaada. ta kale oo soo raacda qodobka labaad, qeexidda labaad waxa weeye xariiqintaada ama usha aad sawiranaysid. usha aad sawiranaysid ee Trainlineka waatan marka adeegsanaysid xariiqintaada, yani ama usha aad sawiranaysid waa in aad ku sawirtaa kor iyo hoosba saartaana. يعني mar walba kor iyo hoos sawirayso maxay suuqu wuxuu leeyahay meel u sareyso u gaaray iyo meeshu hooseyso u gaaray. marka time frame fog tagtid waana idin tusi doonaa iyadoo tusaale cad ah waad ku arki doontaa falanqaynta markaan idin tusayo sida loo sawirto. xariiqinta ama usha oo ah tan Trainlineka marka aad sawiranayso waa in aad ku sawirtaa kor iyo hoos. qaacidadaas si fiican u dhageysta. waana inaad saartaa meel uu suuqu 2 mar iyo wixii ka badan uu ka soo laabtay. suuqu mar walba uu sida tan sameeyo, yani suuqu uu dhaqaaqay, halkan uu ka dhaqaaqay, uu tagay soma, uu jeedaa soma, halkan wuxuu ka galay correction, uu dhaqaaqay, halkaas soo taabtay suuqii, uu soo laabtay suuqii, halkan uu yimaaday, uu soo laabtay, saan large correction kale dib uu ku laabtay, wuxuu sameeyay double top uu sameeyay. suuqu halkaas maxay kuu qabanaya? Trainline baa kuu qabanaya soma. kadib suuqii uu soo dhacay, halkan uu yimaaday, uu jeedaa soma, barta tan buu yimaaday, uu soo dhacay suuqii. intan oo dhan uu soo socday suuqii saa u jeedaan, halkan oo dhan uu ka soo dhacay. inta uu suuqu soo socday marka wuxuu sameynayay hoos buu soo socday. kadib suuqii hoostii uu ka laabtay,
reversal buu ka sameeyay halka suuqii maadaama halka reversal ka sameeyay suuqii oo u jeedaan kaba soo qaad 2 garab iyo madax buu ka sameeyay wuu dhaqaaqay suuqii maadaama uu suuqii dhaqaaqay waxa uu sameeyay wuxuu ku laabtay meeshii kale ee trend line kayd marka halka imisa mar buu soo taabtay 1 2 laba mar wixii ka badan ilaa 3 mar baa dhiganaysa trend line ka u shaada qabadsiinaysa halka hoosana waxaad qabadsiinaysaa sidoo oo kale meel uu suuqu laba mar iyo wixii ka badan uu soo taabtay sida tan oo kale ujeedaa soo meesha tan oo kale si uu suuqu intaana waxa weeye waa meelihii lagu celcelinayay halkan dhexdiisa xataa waxa ka sii heli kartaa trend line up trainer iyo mid hoos ah oo suuqa hoos loo soo celcelinayay ba ka dhexelaysaa marka maxaa laga doonayaa mar walba marka inaad sawiran kartid trend line-ka inta kale dhexdiisana waa ka helaysaa tusaalayaashan oo badanna waxaan idinku dhitusi doonaa tusaalayaasha aan ku bixinayo chartska caadiga marka mar walba u shaada aad sawiranayso waxa saaraysaa meel suuqa laga soo celiyay laba mar iyo wixii ka badan sida halkan oo kale laba mar iyo wixii ka badan halkan oo kale 1 2 waa ujeeda iyo wixii ka badan tiri halka sida halkan oo kale 1 2 markuu suuqani soo laabto sababaha iyo qaacidooyinka waxaas oo dhanna waa ka hadli doonaa uu suuqani ku imaanay halka marka maxaa laga doonayaa mar walba oo u shaada aad sawiranaysid waa inaad ka bilowdaa meel uu suuqu laba mar soo taabtay ugu yaraan laga celcelinay qaacidadaasna waa muhiim inaad mar walba niyada ku haysaan okay xariiqintaada ama usha aad sawiranayso waa in aad ku sawirtaa kor iyo hoos saartaana meel uu suuqu laba mar iyo wixii ka badan uu soo taabtay mar walba adoo qabadsiinaya ku xiraya midda kale 3 mar walba oo aad sawiranaysid trend lineska mar walba oo aad trend lines sawiranaysid xariiqintaada saar cirifka candlestickska mar walba ha saarin haddii uu candleku qaab dhismeedka candleka waxaad ku soo barateen candleku inuu sidatan u samaysmo inuu u samaysmo marka ha saarin boodiga ee waxa saartaa cirifka saar marka u shaada sawiranaysid trend line-ka cirifka saar cirifka waa inaad saartaa waa inaadan saarin boodiga aad halka saarinaad waa inaad halka saarin aad saartaa mar walba cirifka waa inaad saartaa waa muhiim waa inaad saartaa cirifka candlestick-ga waa muhiim qeexidaasna 4 qaacidada 4 marka aad soo heshid meel uu suuqu laba mar iyo wixii ka badan uu soo taabtay meel suuqu laba mar iyo wixii ka badan uu soo taabtay marka aad soo heshid waa in aad isku xirtaa meesha u sareysa ilaa iyo meesha u hooseysa adoo maamulaya ushaada maxaan ka wadaa marka adoo maamulaya ushaada waxaan ku yiraahdaa qodob qeexida 4 marka aad soo heshid meel suuq uu laba mar iyo wixii ka badan ba uu soo taabtay waa in aad isku xirtaa meesha u sareysa ilaa iyo meesha u hooseysa adoo maamulaya ushaada tusaale oo kale suuqu halka waxa uu soo taabtay 1 iyo 2 waad aragtay soma waa inaad isku xirtaa marka trend line-kaaga adaa maamulaya waa inaad isku xirtaa saasa iskugu xirta 1 iyo 2 tanna sidoo kale oo halkaas aragtay inuu suuqu soo taabtay waa inaad ku xirtaa teeda kale taasa waxa la dhahaa ina isku xir waxa kuu soo bax marka trend line qurux badan waxaad aragtay suuqan inuu uptrend yahay halka soo taabtay 1 2 ushaada halka ka bilow saa iskugu xir ilaa iyo meesha u sareysa uu ka gaaray oo jeedaa si qurux badan ba iskugu xirtay tanna halka ka bilow oo u jeedaa si qurux badan ba iskugu xirtay trend line uptrend kaaga soo baxay tanna halkana sidoo kale adoo isku xiraya ilaa meesha uu suuqu soo gaaray hoose suuqan down trend ka ilaa iyo halka uu ka imaanay waa qaabka iskugu xiraysid trend line kaaga iyadoo faahfaahsan oo qoto dheerna waad baran doontaan oo wax ku baran doontaan tusaalayaasha aan bixin doono qeexida 5 marka aad dhameysid sawirashada trend lineskaaga mar walba xoogga saar in aad falanqeysid chartiska ugu
dambeeya si aad u heshid entry sababta waxaas oo dhan usoo falanqeynaysid waa inaa entry meel saxa oo suuqa aad ka geshid heshid iyo jihada uu suuqu aadayo markaasna waa inaad focuskaaga saartaa inta tan oo dhan hadda waa soo sawiratay sooma okay intan oo dhan waa soo sawiratay waa soo qeexday wixii oo dhan balse xoogaaga waa inaa intaa saartaa falanqeyntaada halkaa waa inaad saartaa si aad u heshid entryga mid ay kasii hooseyso waa inaad sii falanqeysaa maxaa sugaysaa marka halka inuu suuqu kuu yimaado kadibna aad ka sugtid jihada buy yacni waa inaad awoodaada dhan halakan saartaa diiradaada dhan waa inaad halaka saartaa marka aad chartiskan kuugu dhow intan oo dhan waa soo falanqeysay waad aragtay suuqii meeshii u hooseysay meeshii halka laba mar laga soo celiyay halka ka sugaysid meeshii sare uu gaargaaray inuu suuqu halkaa kasoo dhacay meesha tan yacni uu soo dhammaaday trailinka yacni uptrainka ahaa wixii oo dhan buyga ahaa taasna waxaa la dhahaa inaad xoogga saartid falanqeyntaada meesha ugu dhow si aad u heshid entry point qaacidooyinka trailinska waa intaas sira badanna marka aan sawirayo oo falanqeynayo baad ku baran doontaan hadda waxaan isla fahanay marka qaacidada trailinska kow maxaan idhahnay ka bilow falanqeyntaada trailinka time frame fog sababta uga bilaabaysidna waan ka soo hadalnay laba waxaan idhaahnay xariiqintaada ama usha aad sawiranaysid oo qodobka labaad waa inaad ku sawirtaa kor iyo hoos saartaana meel uu suuqu laba mar iyo wixii ka badan uu soo taabtay kor iyo hoosba kadibna dhexda u timaadaya sida hadda idiin tusayay mar walba oo aad sawiratid trailinka waa qeexidda saddexaad trailinska xariiqintaada saar cirifka candlesticksku waa muhiim haddii cirif candlestick uu jiro waa inaad saartaa haddii uusan jirinna boodhiga saar oo qabadsii okay balse mar walba cirif hadduu jiro cirifka candleka saar waa muhiim waa qaacido traders badan aysan samayn balse haddii uu sameeyo qofku uu guuleysanayo qaab dhismeedka uu trailinkiisa u sawiranayo ama u dhisanayo qeexidda afraad marka aad soo heshid meel uu suuqu laba mar iyo wixii ka badan uu soo taabtay waa in aad isku xirtaa meesha u sarreysa ilaa iyo meesha u hooseysa adoo maamulaya ushaada adoona gergerinayn waa inaad isku xirtaa baa idhaahday meesha tan ilaa iyo meesha tagla si trailin qurux badan kuugu soo baxo waa qeexidda afraad qeexidda shanaad aa u gudubno marka aad dhammaysid sawirashada trailinska mar walba xoogga saar in aad falanqaysid chartiska ugu dambeeya si aad u heshid entry go-aanna u gaartid una ogaatid suuqani meesha uu aadayo mudanayaal iyo murwooyin halkan waxaad ku fahanteen qeexiddii trailinka waxaa kaloo fahanteen qaacidooyinkii trailinska labadan qaybood markaad fahantid waxaan guda gelaynaa qaybihii kale oo taxanahaana la soco oo casharadu si u kala horeeya u dhigayso muuqaalka ku xigana waxaad ku heli doontaa sira badan oo ah sida loo sawirto meelaha la dhiganayo timeframeyada kala duwan iyo sida la iskugu xirayo trailinekaaga iyo meesha aad ka bilaabaysid iyo sababta uga bilaabaysid iyo waxaasoo dhanna waxaad ku arki doontaan iyadoo ficil ah oo chartiskiya oo bilaa qoraal ah oo aad si degan oo hufan aad u fahmaysid waxaan idin rajeynayaa guul iyo sirtii suuqa forex oo Darwish Academy idin dhex taala adiguna ka faa'iideysatid waa mahadsantihiin mudan yaaliin